أنا كفتر كردين كبيه هنتيبا قبتها يد سيدي هطالي كالكي قبتها نستاقبا تاقعان ليتاك كيرار كانتين هاي وقوي وابيني intaas waxaan leeyahay qoryahaasaan inta oranaya aqal mid kale waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed baan hal kalanayaan leeyahay dhalinyarooy dadkii idin dhalay ee waayeelka ahaa sidan hadda maanta tiilmeeyay hantii runtii markaan ku hadlayno weeyaan mayna hansiisada waxaan leeyahay dhalinyarooy maxaa dhacay dhalashadii maxaa helay dhiigaaga qulqulaya dhaayo ayna qaban karin baad ka dhiididaan dhabta aan ka hadalnay ninka aanu qalaneen ka dhaxlin awowgii dhayo lagu helo dhulku qaali weeyaan ha yeeshee dhamaystiran heshiina weyda la dhacay gumaysto ku doobdhay oromadiya awgeedii ay may soo weerari jirtay madaxa dhulka lagala dhici jiray arbi hadda igu xiloorin jirtay kii noocaas haaba maanta la idinka kari laayahay waa kaafiye kari dheeri weeye yaa soo ma aha inaad booskii aabaha lahaan jiraad hoos martay maaha dhalashadii maxaa dhacay dhiiggaa qulqulaya dhaayo ayna qaban karin baad ka dhiididaan dhabta aan ka hadalne ninkaan u dhalaneen ka dhaxlin awowgii dhayo lagu helo dhulku qaali weeyaan ha yeeshee dhamaystiran heshiina weyda la dhacay gumaystuhu ku doobdheli rabbigay ha dhowro dembigood ha dhaafee kuwii dhiigga qaydhi dheefsayid axmaarka ka dhammaaday dunidu dhalinyaro dhankiina dhulkii looga soo dhacay war dhulka waryaadeen aan difaacna hooy intaad dhalinyarooy idinkaa dhulka iskale idin anfici mayso qabiil idin anfici maayo reer maxay idin anfici maayo axbeen oromo waxa weeyaan waa 50 milyan weeye ama 40 milyan weeye isku aabba ma dhalin af baa mideeyey idinka oo iskooda ka soo jeeda aabba idin mideeyey hooya idin mideysay af idin mideeyey diin idin mideysay dal idin mideeyey maxaa idin kala qaadaya waxaan leeyahay guriga goobnimo idin leeyahay runtii waxaan isla hadda doon bala soo kiciyo waxba hore imaanaysa wasanaaro hadda qorayaan la soo kiciyey saas darteed bisuukay taagay aad iyo aad baan idin salaamaya